waad ku maadsantahay waxqabadkaaga laakiin inta badan dhaliishaan anu ku hayo caawa waxa weeyaan waxa timaada xafiiskaaga waqti dambe waxa jooga safaf dhaadheer dad cabasho ama shaqo doona waxa soo gala nin madaxa albaabkaad soo xidhataa isla 11 kaba waad baxdaa 10 cishay ku gaadhaa halka okay dhaqaale inuu soo galiyo inaanu soo galina waxaanu ka garanaynaa economic status kiina 25 kiina nimba waxaad lahaydeen ka hor markaad noo timaadeen iyo maanta hantida aad leedihiin gawaarida aad wadataan ee fiidada halkaas ay nooga muuqataa lacagta Hargeysa su'aashan ku weydiinaya waxa weeye waxaad si scientific ah noogu sheegtaa hanacaayine lacagta idin soo gashaa waxay tahay maayarka waxa weydiinayaa inuu noo sheego tirada beeraha magaalada Hargeysa ee la qorsheeyay iyo dhulkii ka go'ay iyo wixii lagu qabtay aad mahadsantahay waan ku amaanayaa maayarka wax qabadka fiican oo qabtay waan ku faraxsanahay kala dhalinyarahan waxa su'aashaydu waxa weeyaan waa maxay maayar sababta ay daamaha qaarna markasta biyo u helaan daamaha qaarna aanay aragba magacaygu waa maxamed carab su'aashan maayarka weydiinaya waxa weeyaan hygiene restaurantska amba hoteelada ka dhisan magaalada Hargeysa aad bay u liidataa marka kormeero ay sameeyaan ma jirtaa dawladda hoose عكس على حسبي وطني حرب الليل ودينا حير نمبر 17 حير كردوكا wuxuu sheegayaa in qof kasto muwaadina oo da'diisu 18 jir ka weyn tahay oo awooda dhul degsiimo inuu helo oo ay dawladda localkaasi siiso si sixir bararkan dhulkuna u yaraado mushkiladan runtii qofku isagoo doonaya inuu nolol dhisto gurigii iyo dhulkii ay kala qaalisan yihiin oo dhulkii ka qaalisan yahay meesha uga baxdo ma hirgelin karaysaa awood samowleeda maxaa idinka hor taagan inuu qofku muwaadinka uu xaq helo iyadoo dantii guud aad ka jaraysan beeraha maaha kaliya taa inaynu sheegno daliilooyinkiisa horumarku qabtay baa ka badan su'aashu ma baahna su'aashu in yar 1 minute su'aashu ma baahna oksinia microphone oksinia ma aha wahiyuhu inuu yiraahdo dhaliisha hala sheego waa qofku hadduu wax sheegayo maanu cadaalad u lahayn waxba uu qabtay inuu yiraahdo maanu xaq u lahayn qofku maayarku maadsan yahay الله عليك ومهدسي مايركو حق بولي رايغيسا ادنا حق بدو ليه رايغاغا ماير waxaan ku leeyahay waxa dhigtay taariikhda ku qori doonta insha Allah nin dhalinyaro oo maanta halka gaarsiiyay Soomaaliland adaa ka koowa insha Allah role model baad noqon doontaa